هذا وأنا أركين مانتا كوح كم إذا اسمدي بالبانتي أما قبضة سيسية وخاتم أيام وابديدين هنا إن المجال ده هكذا وصلنا كيلومتر وجرتا مع عاصمة قبل كالصول أي شركة مانتا كوق أفتين شركة سنة وسعنا يسد أي شيء أنت تبع الشو وحاجة تي شركة كهرية كوق أفتين ماشى اللي يراهدو رمي ماشى اللي يراهدو بوهول شركة سبا واحد مودا إنه نمو قد تهدنا قرب شوكتن هاي arrimo siyaasadeed ismadiina waxaa moodaa inay siyaasadii waaba cadaysteen oo inay lugaha la galeen waxaana taasna maaha wixii ay madax dhaqameedka u ahaayeen ummadda dhulbahante maantana waad aragtay dhibaatooyinka ay qabaan reer Soomaaliyeed oo qaba ma jiro reer ismadoodii iyo siyaasiyiintooda ay ka maqan tahay magaaladoodii ma jirto aan dhulbahante ka ahayn reer ismadoodii maalina higlada ku shiraya 30 kilomitir u jirta maalina dhumay ku shiraya 30 kilomitir la socdo u jirta maalina dhacday calaamasaar ka qayb galaya oo aan dhulbahanta ahayn ismadii dhulbahanta qayb kamid aan ahayn ma jirto taasna waxay ayaan darada ka muuqata ismadii dhulbahanta ama hogaankii dhulbahanta ee madaxda dhaqanka yaa keentay dhibaatada maanta dhulbahanta haysata waxaad arkaysaa magaalada beledweyne hal ism oo leeyahay ugaas xasan baa u taliya oo xawaallah oo isamada oo dhan u taliyo afhayeen u ah waxa weeyaan ama gudoomiye u ah ummadan bal 10 sano dhulkoodii ka maqanna waa ayaan daro maanta ismadoodii maalinba inay ka dibad meeraan dibad ka noqdaan dhulkii ay xaq u lahaayeen iyo ummadoodii ay niman gobol ka yimid ay haystaan waa ayaan daro inay ka hadli waayaan shirka ay maanta ku baaqeen waxaan u arkaa shirarkii hore oo arkaa mooyaane shir wax soo kordhinaya ama dhulbaanta lagu mudanayo maaha waayo ismada meesha isku yimaama groupka meesha isku yimid waa groupka xaysi oo khaatumuun sidoo burburin laha ka shaqeynaya waxaana cadayna ismada meesha fadhiya maraya qaar garowe ka yimaadeen oo 89 sano garowe ay joogeen oo wali ma iman shirki taleex baa ugu dambeysay qaar waalgeedo 2-3 sano waxay ku milmeen siyaasadda Soomaaliland bay ku milmeen oo soo hargeysa iyo laasanood bay ka yimaadeen oo halkaas deegaan u ah qaar xaggan gobolka caan bay ka yimaadeen waxa weeye ismada dhaqanku waa ismadayadii sharafiga waa no sharmay waanu shafayna laakiin sida ay wax ku wadaan maanta si ummadda isugu iimaanaysa maaha iyagii iimaanaysu iimaanayn iyagii baa garab kala iyagii baa kooxaysi wada waxaan la yaabanahay arrimaha dhaqanka haddaan u soo leexano coodan la shir bay ku qabteen waxba kama soo bixin waa ku fashilmeen talaax shir bay ku qabteen waxba kama soo bixin waa ku fashilmeen oo beelaha Nuur Axmed shaqaqada dhaxda martabay diyaadeen wax ma ka qabanayna waxba kama qaban tii baar sameeyay qayaada waxa la waxay ka qabteen ma jiro warbal ummadda aad madaxda idin dooratay nin kasta la reer buu ka yimid reer baa cimaamadaye haddii aad doonaysaan inaad wax noqotaan siyaasadda ka baxa horaan waxa u tiraadeen siyaasad kuma jirnay siyaasadda ka baxa arinta siyaasiyiin baa iska leh khaatumaynu u dooranay maamul baynu leenahay ismada kale ee Soomaaliyeed ism kale oo beeshiisii ku haysta siyaasigiisii ku haysta liliga ma jiro aan idinka ahayn idinkii baan midoobayne